magaaladan adduunka idil waxaa lagu yaqaanaa Istanbul ilaa iyo Gariiga mooye. In badan dadka dalkaasi degan ayaa u yaqaanin Al-Qistantiniya. 4 dagaalo waaweyn ayaa dhex maray Turkiga iyo Gariiga. Jasiirad, bad iyo gaas ayaa la isku haystaa 100 sano. Turkiga iyo Gariiga waa maxay sirta cadaawada dhexdooda taal? khilaaf cusub oo sababi kara inuu isku bedelo dagaal ayaa jira. Maaha markii ugu horeysay, haddii uu dhaco dagaalkaasina kaliya wuxuu noqon doonaa mid la mid ah dagaaladii horey u dhacay oo ma aha wax ku cusub labada dhinac. Taariikhdu markay ahayd 1840kii waxaa bilowday dagaalkii Salaajiqada Turkiga iyo boqortooyada Al-Bizantiniya. Waxay isku qaadeen dagaalo badan. Ugu dambeyn sanadkii markuu ahaa 1453 ayay caasimadda boqortooyada Al-Bizantiniya ee Al-Qistantiniya dhacday, iyadoo ay ku guuleysteen dagaalkaas ciidanka haliyey Maxamed Al-Faatix ee Turkiga. Sanado kadib, Cuthmaaniyiinta ayaa kala wareegay dhulal badan Gariiga, arrintaas oo ku ahayd murugo xanuun badan dadka u dhashay Gariiga. Waxay isku geeyeen xoog iyo maal intay awoodeen. sanadkii markuu ahaa 1786 ayay ku dhawaaqeen dowlad Gariig madax bannaan. Markaasi ayay ku dhiiranaadeen in ay kaalmo siiyaan cadowga dowladda Cuthmaaniyiinta sida Ruushka iyo Talyaaniga. dagaalkii ku caanbaxay Balqaan sanadkii markuu ahaa 1912 ilaa 1913, dowladda Gariiga oo garab ka heshay Serbiya ayaa ku guuleysatay in ay dabar jabiso Cuthmaaniyiinta kana qabsatay dhulal badan sida jasiiradda Crete iyo saaxilka Macedonia. sanad kadib markuu bilowday dagaalkii adduunka 1914 ayaa Faransiiska iyo Ingiriiska ku qanciyeen in ay Gariiga ka qayb gasho dagaalka 1920kii. waa ayna ku guuleysteen Gariiga in ay urmoodayadooda oo ahayd inay dib u qabsadaan Al-Qistantiniya ama Istanbul maanta. waxaa u suurta gashay inay galaan dhulka Anadol oo ay qabsadaan Izmir. dabadeed waxa ay ku qasbeen dowladda Cuthmaaniyiinta inay saxiixdo heshiis ku caanbaxay Sevres. kadib markii uu diiday baarlamaanka Cuthmaaniyiinta inuu ansixiyo heshiiskaas, ayaa waxaa dib u bilowday dagaal uu hogaaminayo Mustafa Kemal Atatürk, kaasoo lagu xureynayo dhulka Anadolka. sanadkii markuu ahaa 1922 ayuu ku guuleystay Atatürk inuu dib ula soo wareego dhulka Anadolka.